bisa u baahanahay kama xumi xaaskayga aan ku kala tagnay kama xumi reerkayga baaba'ay ha ku faraxdo ayada ani soo maahan nolosheeda waxa dhibayso ha iskaga faraxdo caawa nolosheeda way baaba'day reerkaygana wuu dumay hooyo laakiin haddii videogan uu kusoo gaaro ama videogan waa ogahayd please duuba guys ku share gareeya meel walbo maxaa u maleynayaa marka dambe oo videogan kusoo gaari doono anigoo nool inaadan ila kulmin oo aadan codkayga maqlin laga yaabaa dunidaba inaan ku nooleen xilligaas hooyo xaggayga cafisaa ka tahay laakiin please hooyo ilaahay cafis weydiiso gabdhaha Soomaaliyeed idinkana waxaa idinka codsanayaa please tan ani igu dhacday 20 sano hadda kadib yeysan soo noqonin yeysan dhicin please waana mahadsantihiin waa idin salaamayaa waan ku jeclahay hooyo nafteedan kaa jeclahay laakiin waxyaabaha ay ugu sameysay dunida ugu necbanahay waan u necbanaan doonaa laakiin waa iska kaa cafinayaa hooyo because of wax walba foosha ay ii martay yaa ka daran laakiin hooyo waa noo kala eexatay aniga iyo walaalahay waa noo kala eexatay taasna waa caadi haddii uu aabbo noolaan lahaa maanta laakiin dhib ma laha xoogaa yar cadaalad yar heli lahaa at least wax walba ahaato waxaa idinka raali gareynayaa maadaama ay shucuurteeda bedelantay waa ishayn kari waaye meel aan la iska taabaninaa la iga taabtay caawa please guys adduunka ceeb waaye qof hooyadiis mustaqbalkiisa ay duminayso ceeb wax laga xishoodo waaye waa ogahay maadaama ceebtan aa idinla hor imaadayna please ha ii maleynina inaan views idinku rabo dad badan ay daawanayo waa ogahay isku qulub ma wada tihiin laazim waa ogahay dad baa qalbigayga dareemaya oo arkaya waa ogahay wiilal badan oo Soomaaliyeed sideeda oo kale dhibaato badan loo geystay laakiin waxooda haysto ilaa hadda aniga waa haystay waxaan qarsanayay more than 15 sano wax walba ahaato guys anigoo idin jecel waxaa idin leeyahay nolosha idin ma xumayso sharaf iyo cizi ku noolaada allah idin sharfo mar walba sida ii jeceshiina idin jeclahay no wax prank la dhaho ma jiro as serious waxyaabo qaar oo prank aan gelinaa jiro laakiin please marka dambe ay arki doontaan uma maleynayo qofka ahay anigoo inaa idin hor imaan doono wax walba aan ku kici doono ha ii qabanina midda kale ay idinka codsanayana waxay tahay wax walba oo familkayga hore ay xasuusinina because of haddii aan soo xasuusto waxaa laga yaabaa xitaa inaan nafta isdhaafiyo please guys waa ogahay Soomaali Maxamed sida u wada dhib badan tihiin uma wada qalbi xumidiin waa idin ogahay dadka ftamaatihiin mar walba idinkoo dadka dhibaato u geysanayo oo dhibaateynaayo oo kale haddana xaaladaha markay serious tahay ogama tagtaan meel cidla ah waa idinku ammaanayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed hadda ay malan jirteen inaa Ethiopian ahay aniga Ethiopian ma ihi haddii ay malan jirteen inaa Xabashi ahay aniga Xabashi ma ihi haddii ay malan jirteen inaa qabaa'ilada kale Soomaali ahay qabaa'iladaas kale ma ihi xaqiiqda waxay tahay caawa inaa hortiina idinka cadeynayo aniga wiil habar gidira ahay Saleebaan Abubakar kasi ah intaas wax loo sii dhaafay xataa ma aqaano hooyaday qasabka ay naqasabtay darteedna waa in ceebka ay naga tustay familigeena laakiin dib ma lahan waa waalid ani kulay cafi alay masaamax baa leeyahay marka waxay doonto ha noqoto please and please mar dambe guys sheekadana yaa la igu soo qabanin wax walba sidaas oo ogaada wax walba please sidaas oo ogaada guys waana ka xumahay wixii igu dhacay aad iyo aad inta qof oo iga le sorry waa idinka qabaa walaalayaal ilaahay ma taqaanaa ha idin wada sharfo